أنا قدوميها قدوة مدح بنان إدارة شذا قرنك استخدمها وفد بلارن وأنا هجامينها هي أيام مات مجالات النمط بيدبو وحرمتكم الجاركة إمام الكونفرق البيت وفدي وحكم إذا كوميشنر أفوكات محمد عبد الرحمن حقيقة جودة مدن حسن نونو ujeedadana waxay ahayd ukurgal iyo dardargelin arrimaha doorashooyinka dhammaan isteediyada sida koonfur galbeed galmudug hirshabeelle iyo waqooyi bari waxa ugu weyn inaan u nimid magaalada maanta waxay tahay inaanu dadka u sheegno in la gaaro xilligii doorashooyinkii isku sidkanaa ee ahayd golaha wakiilada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo golaha deegaanka ee koonfur galbeed state in insha Allah taala aanu cilaamino xilliga rasmiga ay bilaaban doonto bishaan aan ku jirno April 28keeda waa maalin ku astaysan maalinta doorashooyinka isku sidkan midda heer gobol oo ahayd baarlamaanka koonfur galbeed iyo midda stateska oo ah golaha deegaanka inay ka timaado 10 degmo 11 degmo sorry 11 degmo waxay kala yihiin Bakool gobolka Bakool waa Xudri Waajid gobolka Baay waa Baydhabo Dinsoor Qansax Dheere oo la furi doono mardhow bardaale iyo Buurhakaba shabeellaha hoosanana waa walaweyn marka afgooye iyo baraawe insha Allah taala waxyaabaha ugu weyn oo ugu kalifay inaan ma aragtay maanta nimaano waa in aan dib u furi doono laba degmo oo cusub oo macnaha Baydhabo oo ah magaalo madaxda ku meel gaarka ah maamulka koonfur galbeed oo aan dib u furi doono diiwaangelinta codsi ka yimid ururada siyaasadda maadaama magaaladu ay tahay magaalo weyn dadka iska diiwaangelin ay yaraayeen ayaanu muddo 10 bari ku darnay in la isdiiwaangeliyo iyo degmada Xudur oo ah gobolka Bakool oo ayadana aan dib u furi doono insha Allah taala 10 maalmood oo baaragtay diiwaangelin ah waxaan furaynaa tomorrow morning 11 degmo marka laga reebo Qansax Dheere 10 degmo kaararkooda waa diyaar waa la bixin doona insha Allah taala waxa isla socon doona parallel process kaar bixin iyo degmooyinka qaarkood diiwaangelintoodana ay socon doonto insha Allah taala soo bisha April 28deeda waxay ku asteysan tahay waa maalinka doorashooyinka isku sidkanaa ee koonfur galbeed Mineral Cream midi waa one ballot oo ah golaha deegaanka oo 11 degmo ah midna waa golaha wakiilada oo baarlamaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Mineral Cream marka ujeedadan ugu weyn waxay tahay inaan dardar gelino hawsha ayada ah waxaan jecelnahay insha Allah taala dadku inay ka faa'iideystaan fursadda special magaalada Baydhabo iyo Xudur oo dib loo furi doono 10 bari inay dadku ka faa'iideystaan isdiiwaangeliyaan insha Allah taala isdiiwaangelintaas waxay socon doontaa subaxa in the morning ilaa habeenkii 6 saac insha Allah taala waxaan rabnaa dadku inay soo kacaan inay ka qayb qaataan doorashooyinkan fursad qaali ah waxaan ka soo sameeynay gobolka Banaadir oo si qurux badan u dhacday oo aan 390 golaha deegaanka aan dhaarinay ee dhawaan waxaan rabaa dadku inay fursadan qaaliga ka faa'iideystaan oo ay dadkooda wakiilada u ah golaha deegaanka iyo golaha wakiilada ay qayb ka qaataan Mineral Cream waxaan ugu xigi doonaa galmudug iyo hirshabeelle ee waqooyi bari waxaan u sameyn doonaa golaha deegaan kaligood ay golahooda dhexe oo baarlamaankooda iyo madaxweynahooda 5 sano maandeed ay haystaan insha Allah taala laakiin diiwaangelin cusub ka bilaabi doonaa degmooyin kale dhowr ah waqooyi bari ah waxaan kaloo rabaa inaan ku wargeliyo dhammaan ururada siyaasadda oo loo diiwaan gashan inay yimaadaan deegaamada koonfur galbeed galmudug hirshabeelle waqooyi bari oo xafiisyadoodii hore ay uga furteen qaarkood inay kuwa kalena furtaan yimaadaan waxa wax fiican ah in already siyaasiyiintii iyo ururadii badankooda ay joogaan koonfur galbeed ay soo xaadireen maalmihii u dambeeyay kuwa kalena waxaan leenahay ku soo biira campaign-kiina bilaaba soo gudbiya murashaxiintiina isku daya inaad si fiican uga qayb qaadataan kuwa raba inay doorashada aadan Mineral Cream